السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قالقة نقل سعودة channel كينا وهذا ليه يسود روادا من فضلكم channel كوا channel كيني سبسكرايب نودها ولا لها قلبك هل كان نقل سعودين وchannel كان شيء مشرف إلهي بعد كل دارية ويل كان فيديو بيسا ميل در جارسية ميل دير وجارسية ويل كان ويل سوماليات وحكو حرية هاي حبسي وحكو حرية هاي تشيل إن وحولي هاي وحيقول حيسا شارمل كائي دلك بولند bay u dhaxaysaa laakiinse jeelkan uu ku xiran yahay soo sheegayo wadanka Jarmalka ayaa laga xukumaa walaalahayga qalbiga khaasatan Soomaalida Jarmalka joogta waxaad ka codsanayaa min fadlakum in wiilkan garab la siiyo oo loo gurmado loo gargaaro waxa laga yaabaa in si qaldan wiilkan lagu haysto waxa laga yaabaa si qalad in lagu xiray hadii uu dambi galana dabcan looyro loo qabto oo maxaa la dhahay wiilka meesha laga soo daayay wiil Soomaaliyeed weeyaan dhibaatada ka muuqato waa u jeedaa sidoo wajigiisa u eegyahay waa u jeedin min fadlakum إلهي سبحانه وتعالى وحيل هذا أرضي كركيس اسكوجو أرحم أنا قسمة إذا كسرنا حريصنا ياي سوامالي ذي نحريستي لجو أوجا وهذا كع السنة ويل كان يرد تصور كيس فيديو ويس إديم موضوع إن سيدا أقول نخسيها بدن أدو جرمتان أو أدعوت سجي سميل در أجارسيسان وكان أسجيو هادليا أسجيو كهادليا لبعتها هاي ستة يمشوا كحرية هاي إن محارد على مستعان مجالد وكحرية مجعد الشيء جايو طبعا ريتشر ملكا aad bay u garanayaan bay ilaahay meesha ku xiran yahay wuxuu tilmaamayo anagu de rajal manihin mana ka war hayno yani mana ogin meeshaas yani waxay tahay warna kama hayno xog dheeraadana kama heli karno laakiinse Soomaalida Yurub ku nool khaasatan Jarmalka ku nool waad dareemi kartiin ama waad garanaysiin bay ilaahay meesha wiilkan ku xiran yahay mafadlakum waa kana wiilkii oo ka sheekeynaya meesha ku xiran yahay Soomaalida uu ka dhashay uu ka soo jeedana codsi u dirsaday kana codsanaya إن لو سو جرمدو أو ميل دير فيديو بيس لجارسية من فضلكم وهكذا يو جرمدو ميل دير فيديو بيس جارسية صاحب الغير جرمن وحالين قاعد صنايع إن تزود أصابنا اللي يسوق جرمتان وحنشوفها مقالة وارمستارف عودة حيث الجيك ريبابليك بولان يا جرمالك لكن جرمالك حكومه وحالين كبعانا كريس ومع ذا جرمال تكسودين هني معدان يصاران ماشا حالات عدد مكتشرة وبش لباب الوضع حريرا وكوحن بناعي marka bisha hore inta lagu yiraahdo baxaysaa markii aan siri baxadana bil khal lagu daray dambiilayaasha lagu baaraa meeshan biliis waxaan idinka bariyay inaad badbaadisaan meeshan in laga saaro saaxiibayaal walaalkiin akhtari meeshan laga saaro rabaa qolka ayarban ku xidhnaanay 2 bilood cuntadana marba hoosta markaas ayaa laga soo dhiibayaa badbaadaan u baahan waa idin bariyaa badbaadaan u baahan reer Jarmal Soomaalida Jarmal joogta iskaarsiiso warkayga ولا لهيج قلبك ووذا دريميسين وان وجهتين إلهي وحير هذا إسكو قلنا حريستو دولكو كوركيسا أنا جنا إذا قلنا حريستو واحد كجنا حريسنا في السما ذا كوركيدا فإسكونا إحنا إسكونا حريسنا صومالي وضد قلبي ونكسن وضد آد وفي عن وضد يعني ولا الكود يكود اللي بعتيسن بقرب سي ويرد هذه اللي هذا صومالي وضد استعل وضد ولا لا وضد إسكو جرمدا ولا لهيج قالقة واحد كوعد صنيا ويل كان اللي يرد الصوماليات يعد سجنا صوت رصدي aanu kacno u gurmano wiilkan xabsiga uu ku jiro hal laga soo saaro hal loo tago wacyigiisa hal laga wardoono sidoo xaalkiisu yahay hal laga wardoono wuxuu yiraahday Soomaaliyay fiidiyoowga share gareeya oo meel dheer gaarsiiya maxaa la dhahay waliba gaarsiiyo Soomaalida Jarmalka joogto oo liana dadka kaliya ee ugu dhow maanta toole dadka kaliya ee maanta ugu dhow ee laga xiriir karo ama u gurman karo waa dadka Jarmalka la joogo waay jeelkan wuxuu waxa xukuma Jarmalka xukuma xabsigan uu ku xiran yahay waxa xukuma Jarmalka dawladda Jarmalka xukunta dadka Jarmalka jooga gobolku joogo uu ku xiran yahay xataa uu sheegaya magaciisa famarka waxay ka codsanayaa Soomaali Maxamed meel kasta joogto horta wiilkan ha loo kaco hadii ay noqon lahayd af iyo hadii noqon lahayd adin iyo hadii noqon lahayd waxtar hadii noqon lahayd intaba ha loo kaco Soomaali Maxamed meel joogtaba Soomaalida Jarmalka joogtana waxa khaas ahaan ula dardaarmaya wiilkan sida ugu dhaqsiyaha badan inay u kacaan Soomaalida aan leen asxaabta ku nahay meeshan shaashadan naga fiirsanayna waxa idin ka codsanaya wiilkan fiidiyowgiisa hadii aad aragtay ha dhaafin fadlak meel dheer gaarsi share dheh like tasar si maxaa la dhahay meel dheer uu gaaro oo Soomaali badan wiilkan ay u aragto oo ugu gurmato walaalahayga qalbiga waa wiil Soomaaliyeed waa wiil walaalkeena waa u jeedin qof dhalinyaro inuu yahay waa u jeedin wax ka qaldan ma lahan laakiinse xabsigu uu ku jiro qolkaas yarka aban ku xiranahay buu yiri cuntadana hoosta la iga soo tuuraa buu yiri sidii qof yani gabigiisa dambi weyn ku xiran sidii qof
dambi aan caadi ahayn ku xiran oo kale buu wuxuu yidhaahday cuntada hoosta la iiga soo tuuraa allahuma istacaana albaabkaasaan ku xiranahay oo albaabkaasaan la igu xiray wiilka haddii oo wiil maxaa la dhahay iska soo xiray ama dambi yar lagu haysta u yahay dabcan soomaali haddii u kacdo u gurmato waxaan qabaa ani sida ugu dhaqsiyaha badan wiilka xabsiga in laga soo saari karo haddii problem kale uu jiro oo waxaanaan ogeyn uu jirana dabcan horta soomaali ha u tagto oo ha u gurmato oo hala soo arko wiilka meeshu ku xiran yahay iyo wuxuu yahay daman qalbiga bini'aadanka ama dambi noqonaya hadda waxa laga yaabaa fiidiyowgiisa waalidkiisa inta daawadaan oo dhibaatadan wiilkan uu ka cabanayo uu sheeganayo in qalbigu jabo waxaa idinka codsanayaa min fadlakum soomaali maxamed meel kastoo joogtiin dad isjecel baan nahay soomaali haddaan nahay wiilka inaan u kacno inaan u gurmano meeshuu ku jiro iyo xabsigu ku jiro iyo jeelku ku jiro in loogu tago in laga soo saaro in maxaa la dhahaa loo mustacaanaye garab la siiyo in loo gurmado dadka agtiisa jooga ee ka agdhow ee u gurman kara waxaan ka codsanayaa min fadlakum inaad u tagtiin wiilkaas oo xogtiisa aad raadisiin oo loo gurmado oo loo kaco dadka aan agtiisa jooginna waxaan ka rajaynayaa bidmillahi karim ka codsanaya af iyo adinba wiilkaas inaan ugu kacno in loo gurmado adigaa ugu sokeeya maanta toole haddaadan af iyo adin iyo maal toona aadan tari karin oo aadan siin karin adiga shaashadan ka daawanayo wiilka fiidiyowgiisa u sheer gare oo soomaali maxamed oo dhan u gaarsii ay inta guruubay ay inta bahalka aad ku jirtid ugu sheer gare si soomaalidu u aragto oo wiilkan loogu gurmado wiil soomaaliyeed wiil dhalinyaro weeyaan waa wiil gargaar inaga codsaday wiil gargaar u baahan waa wiil laga yaabay inuu dulmi meeshaas ugu jiro waa wiil laga yaabay in dowladdu qalad ku qabsatay ilaahay idinku dhaariyey wiilkan fiidiyowgiisana u sheer gareeya haddii aad u gurman kartid oo jarmalka joogtid waxaa idinka codsanaya wiilkan si qalbiyana oo niyada ah oo ilaahay dartii markaad bini aadan wax u qabanaysid weji ilaah baa loogu qabtaa ilaahay wejigiis iyo ilaahay hortiisa baa bini aadan wax loogu qabtaa wax kale bini aadan ha uga doonin ilaahay wejigiisa wiilkan soomaaliyeed ugu gurmo soomaalinimo ugu gurmo muslimnimo ugu gurmo dal iyo maxaa la dhahaye iyo diin inuu kula wadaago awadeed ugu gurmo wiilkan soomaaliyeed walaalahayga qalbiga waxaan kusoo koobayaa fiidiyowgayga soomaalida daawan doonto fiidiyowgan in ay u sheer garayso wiilkan oo meelo badan ay u gaarsiiso soomaalida daawan doonto fiidiyowgan oo maxaa la dhahaye wiilkan meeshuu joogana waxaan ka codsanayaa sida u dhaqsiyaa badan inay ugu gurmadaan wiilka jeelka ugu tagaan oo gargaar wacan ay u siiyaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu